soo dhaweyntan aan ka wada qayb qaadanay safiirka Hindiya xerraaliyaha guud ee qaranka bahda saxaafadda dhamaantii waa salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu soo dhaweyno 76 maxbuus oo kamid ah qaybtii ugu dambeysay ee ah maxaabiistii Hindiya ee nagaga xidhnayd oo 120 ku simnaa saddex kamidna Allah u naxariistay ay dhinteen tan iyo intii xukuumadda nabad iyo nolol la dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu nagu amray in aanu fulino amarkiisii ahaa in loo gurmado shacabweynaha Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku tabaalaysan maxaabiista ku ah meelaha qaarna loogu haysto magafayaashu sida Liibiya oo dhawaanaynu qayb kamid ah ku guuleysanay inaynu soo guriyo celino waxaan xasuustaa tan iyo intii xukuumadda la dhisay dadaalkii dheeraa ee aanu galnay maxaabiista Hindiya oo ka horna xerraaliyaha guud uu ka shaqeeyay intii xukuumadda la dhisayna aanu dardargelin cusub gelinay haday tahay heshiiskii isweydaarsiga maxaabiista oo la fagurkiisii iyo falanqeyntiisii aniga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka cadaaladda xerraaliyaha guud dhamaantayo intaan golaha wasiirada aan sixinin aanu ka shaqeynay loo gudbiyay golaha shacabka golaha wasiiradu meel mariyay dabadeedna noqday sharci heshiis ah ama oo laba dawladeed u dhaxeeya Hindiya iyo Soomaaliya suurtana geliyay inaynu procedure-kii iyo habraaci sharciga ahaa marno qareenadii u doodayay haday tahay iyo hawsha safaaradda Hindiya ay waday dhamaanteen ku guuleysanay maanta in 41 hore inoogu yimaadaan 76 maanta aan halkan ku soo dhaweyn waa guul runtii waa maxaabiistii dalkii wuxuu noqonayaa Hindiya waa ka soo dhamaaday Seychelles baynu hore maxaabiis uga soo wareejinay waxaan ka soo wareejinay Liibiya Itoobiya noogeen oo haddana qayb kale dhawaan aniga ayaanu safiirka Itoobiya Addis Ababa inoo jooga ka shaqeynay sidii loo soo deyn lahaa marka meel fiican bay maraysaa dhamaan maxaabiista dalalka dunida ee nagaga xidhan sidii aynu soo guriyo celin lahayn waxaan hadda ka shaqeynaynaa oo kale Jordan iyo wadamada kale Liibiya oo ay maxaabiis badan iyo dad loo haysto magafayaal haystaan ay jiraan madaxweynuhuna amar ku bixiyay xukuumadda fulinaysa ra'iisul wasaaruhu ku tilmaamay in maaragtay la meel mariyo waa hawl aan ka wada shaqeynayno haday sharci tahay iyo haday tahay adeeg iyo gurmadkii kale loo baahnaa mar walbana kharashka ku baxaya waxa bixinaysa dawladda lagu soo celinayo haday diyaarad gaar oo loo girayo ama Addis Ababa ka soo qaado ama Hindiya maanta ka soo qaaday ay tahay waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto isha macallina dhagta macallina wareysta dhalinyarada hadda tiin dhageysta dadka maxaabiista ee guryahooda ku soo guriyo noqday dalkooda waxay ku soo arkeen dunida daafaheeda kale rafaadka iyo dhibaatada taalla iyo dalkooda hooyo wax kastaba ha ku qabaane markay yimaadaan nolosha iyo hawada wanaagsan ee ay maaragtay ay dareemayaan iyo xorriyadda ay dareemayaan iyo waajibka saaran qof walba in dalkiisa uu ka faa'iideeyo horumariyo tacab geliyo si uu si nabad ah ugu noolaado oo aanu isagoo tahriib ah ama saxariir iyo silic meel kale ku nool daafaha adduunka aanu haddana xabsi iyo u sii dheeraanin waa guul weeye run ahaantii waa uga hambalyeynaya mas'uuliyiinta u socdaalay inay suurto geliyaan inay keenaan maxaabiistan iyo mas'uuliyiinta kale safiirka iyo howlwadeennada safaaradda Hindiya safarka dheer soo maray guriga keenay guryahoodii ku soo celiyay caasimadda inoogu keenay maanta 76 maxbuus waa mahadsantihiin intaasaan ku soo gabagabeynaya